step kan labaad waxaynu ku baran doonaa qodob aad muhiim u ah qodobkan waxaa la yiraahdaa writing tools sida askariga hadduu dagaal galayo waa dareemaysaa waxyaabaha ugu horeeya askariga laga rabo maxaa kamid ah waxaa kamid ah oo kow ka ah inuu askariga la yimaado maxaa la yiraahdaa qoriga ku dagaal gali lahaa in fact qori kaliya maaha askariga marka la fiirsho dagaalka wuxuu ku galayo waxyaabo badan baa jira toosh buu wataa mid kale wataa wax kale wax ku jarto wataa meelo wax gashashto haystaa meelo kale oo kaba si uu xiran yahay meelaha maartay gacmaha waxba u gashan yani tools badan baa askarigu wataa dhar buu xiran yahay lagu garanay too many things wax tools badan baa the same applies here marka haddii aad doonaysid inaad maartay aad wax qortid waxa u baahan tahay toolska inaad maartay aad si fiican u taqaanid toolskana ku tala gashid ayaad u baahan tahay haddii kale runtii waxaad wax isaga dhamaanayaan fashil isaga dhamaanayaan qof aan tools haysan waa adoo yiri dagaal baan galayaa anoo askariya kadibna qoriga markaan furinta meesha ugu shaysa marayo aan maartay ciidankii kale aan la dagaalamay aan dhex tago baa wax leeyahay qorigan soo iloway qorigan doonanaya isuga haddaad aad ka war marka macweeye macquul ma inaad ka soo noqon baa laga yaabaa hawshaas marka this is the same marka haddii aadan ma aragtay toolskaada iyo systemkaada diyaarsan shaqadii hadhow waxa laga yaabaa inay baaba badan ay kala kulantid dib badan ay kala kulantid hawl badan ay kala kulantid hadhowna aad ka niyad jabtid shaqadii inaad qabatid marka waxa soo noqdaan kow maxaa u baahan tahay waxa u baahan tahay laba qaybood waxna waa qalab waxna waa software-ka horta ugu horeeya oo ah software-ka wax lagu qoro ayaad u baahan tahay software-rada wax lagu qoro waxa kamid ah kan oo loogu talagalay in maxaa la yiraahdaa waa qoraalkii sida word document oo kale u shaqeeya laakiin ka duwan iyo word document oo runtii kan ugu caansan oo runtii aad isticmaali kartid haddaad isticmaalaysid labadan mid ka hartid isticmaal kan example daartid inaad isticmaashid number 1 waxa laga rabaa inaad isticmaasho waxa ka horeeya inaad baratid kowda horeba intaadan buug qoridii wax u gudbin waa inaad baratid you have to learn waxa laga rabaa inaad baratid waqti gelisid marka kadib insha Allah aad maartay aad u soo gudubtid marka face-ki kale aad u soo gudubtid marka hadba face-ka maraysid la soco face-ka soo sax markaas wax u gudbi kartaa kan labaad markaas wax u gudbi kartaa kan saddexaad saas ku wadaynaa word document waa kan ugu caansan barashadiisu aad u fududahay isla xirfadka waxa ku jira koorsooyin free ah word document ku sharaxaya marka taana waa taa inta waxa ku raaca oo aad u baahan tahay computer ayaad u baahan tahay si aad safarkaada u dhameystirtid computerku waa muhiim computer waliba fiican baad u baahan tahay buugu sida waxyaabaha la qoro waxyaabaha ugu runtii maxaariyada ugu hawsha badan buu ku jira yaani runtii haddii aadan aysan ka goonayn waa adag tahay in qofku buug uu qoro waa inaad go'aansatid marka xikmadu waxa weeye buugga la qorayo buug baa qortay 20 page waxa marinaysa haddii computerku iska yahay computer qoto ah oo hawl shiiso aysan fiicnayn waxa laga yaabaa in maartay uu kaaba crash garoobo ama lacala ka fariisto ama computer aan nidaamkiisu systemkiisu fadhin iyo ka fariisto marka 20 page ba soo qortay miyaa ku noqon kartaa haddana xitaa wixii aad qortay maskax ahaan ma xasuusatid marka waxa weeye niyad jabkay kamid tahay yani haday waxyaabaha kugu dhacaan waxan waa technology waa isticmaalaysaa computerka waa fariistay buugiina 100 page oo marinaysa bal 100 page oo marinaysa computerka waa fariist lamana badbaadin karo xogtii maxaad samaynaysaa aad ba u baaba'aysa marka xikmadu waxa weeye computer waxaad u baahan tahay fiican oo decent ah oo processorkiisu fiican yahay maxaa noqon kara computerka ku anfici kara waxa ku anfici kara example core i3 ba ku anfici kara wax qoraysid core i5 ba ku anfici kara oo ka sareeya ka core i7 ba ku anfici kara waxa laga yaabaa inaad muddo kadib daawanaysid oo 7ka laga baxay markaana insha Allah wixii ka dambeeyay ayaa insha Allah ku sii anfici doona hadii la yiraahdo arinta kale oo muhiimka ah waxa weeye waxa u baahan tahay liiska halkan aan soo galin waxa u baahan tahay flash disk flash waa very important flash tan wax kala qaban mayso computer kale ma gelin kartid meel kale uma qaadan kartid cid kale uma dhiibi kartid flash tan backup u isticmaalaysaa waa very important computerka waa faraysan karaa in a single second waqti walba ayuu faraysan karaa sida computer waligaas ku hadlay therefore computerkii waa uu ka faraysan karaa marka waxaad sameynaysaa maanta kale marka wax qortid backup baad waxa ku shubaysaa flash kii hore ku dul koobiyaysaa hadii kalena backup-yada waxa uu sameeysaa dheedad u sameey marka ku koobiyayso maanta computerku laga xada xitaa ama laga dhaco waxa weeye waxaad helaysaa
chance baad helaysaa ma garan chance baad helaysaa marka this is important marka insha allahu waxaan rajaynayaa inaad fahantay conceptigan waxyaabaha laga soo subaaqsan haddaadan hadda sii diyaarsan waxaa kaloo u baahan tahay book aad ku qoratid fikradaha waayo buuggaani muhiim buu yahay waxaa laga yaabaa in adoo meel maraya wax kugu soo maaxdaan buugga laptop ma wadan kartid magaalada lama wareegi kartid soo buugga jeebkaaba isaga wadataaba buug yar wey marka waxbaa qalinkaadana waa wadataa automatic wey beenku waa muhiim marka waxbaa ka fakeraysaa maxaa la yidhahdaa waxbaa ka fakeraysaa adoo meel maraya ama waxbaa helaysaa buugga sida markaa qorayso maskaxda wuxuu kugu soo daadanayaan sida gabayga oo kale wey gabayga qofku markuu qorayo maxaa la yidhahdaa gabaygii waxbaa isu sheegaya ma la garanayo meelay ka yimaadeen kaala sheeg laakiin waxbaa isu sheegaya qofkii marka gabaygiiba uu maxaa la yidhahdaa sheegaya dhahaya this is the same buugga dadka qora waa sidaas oo kale buugga markaa qortid marka hore waa sax waxaa laga yaabaa banaanka inay joogto waad leedahay see wax igu soo maaragtay maskaxda wax igu soo maaxan karaan walaa inaa isdhahay laakiin wax markaa hawlgashid oo isku hawshid oo shaqadaadii ka dhigatid yacni waa ka fakeraysaa maskaxdii erey bay keenaysaa hadal bay keenaysaa jumlada saaran bay keenaysaa waxaa marka oo kaa qaldhumaya suuqa markaa maraysa wixii hadhow markaa xafiisi kusoo noqotidna ama meesha ku shaqayn lahayd kusoo noqotidna waxba maskaxda kuma haysid therefore waxa wanaagsan inaad maaragtay buuggaada iska wadatid iyo qalinkaada hadba wixii concept ah wixii farsamo ah aad qoratid oo aad leedahay buuggaada waxay u tarayaan wixii research wixii baarid wax walba aad u isticmaali kartaa buugga yarka alaabta kale waa alaabtii kale oo la isticmaalay xafiiska loo isticmaalay iyadana aad bay muhiim u tahay waxa kale oo very important ah layrka yarka oo layr yaroo saa u istaagan baa jira saasoo kale baa jira this is like sainka kuma fiicni kursigaadina waa ka miiskaadina waa kan waa miis marka miiskaadii ayaa la dul saaraa meelahan kale korontadaad gelinaysaa iftiin fiican buu ku siinayaa markaa wax qorisaysa indhuhu kaaga dhaca haddii kale oo maaragtay bilaa iftiin wax ku qortid maxaa la yidhahdaa waa ku saamaynaysaa okay hadda iyana waxba ku cayrin yacni adiga waxaan oo dhan haddaadan awoodin qalin iyo buugga kasoo gado keliya iyo computerkaada iyo word documentigaada isticmaal intaasaa kugu filan laakiin lacala haddaa rabtid inaad isu diyaarisid oo aad maaragtay motivation qaadatid oo maaragtay dhiirigelin waxaan oo dhan iska soo diyaarso because waxaan lacag badan ma joogaanba intooda badan waaya waxaa kaloo muhiim ah kan koobka wax ku cabbi lahayd iyo tushuga waa muhiim lacala haddii wax kugu daataan oo kale waa shaqaysanaysaa degdeg waa ku tirtiraysaa waa ka gaaraysaa biyar haddii wax gaaraan marka these are very important marka qalabkan muhiimadda waxa weeye inaad fahantid lacala qalabkan inaad u baahan tahay maalintaad awoodid inaad soo gadatid lacala haddii ay qalabka kan maxaa la yihahdaa qaali kugu noqdaana basically waxa u baahan tahay baseka ah waa computer iyo word document haddaa haysatid iyo book iyo qalin inta kale maxaa la yihahdaa waa laga boodi karaa inta kale laga boodi karaa laakiin maxaa la yihahdaa adigu waxa muhiim ah inaad wixiiba wada taqaanid waxa u baahan tahay waxa awoodi kartid marka inaad maartay aad soo gadatid marka qalabku saas marka muhiim noogu yihiin inaan rating tools keeni ama qalabkeeni aan ku qoranayno inaan haysano marka qalabka aad soo diyaarsatid waa stepkii labaad ayaynu marka insha Allah waxaan u gudbi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo stepka saddexaad aad iyo mahadsantiin